muuqaalkan waxaan kugu soo gudbi doonaa ahamiyadda ama faa'iidada ay leedahay inaad quruxsatid ilkahaaga. tusaale ahaan laacibka caanka ah ee loo yaqaan Cristiano Ronaldo markii hore sidaan ayuu u ekay, markii dambe oo ilkihiisa quruxsadayna sidaan ayuu noqday. run ahaantii ilkaha waxay qayb weyn ka qaataan quruxda qofka. muuqaalkan ayaan kugu soo gudbi doonaa qaababka kala duwan ee aad ilkahaaga u quruxsan kartid. fadlan waxaan ka codsan doonaa inaad muuqaalka like saarto, sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagana ugu faa'iideystaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaad dhamaan saaxiibayaal. magacaygu waa Dr. CK, waxaan ahay dhakhtar dentist ah. maadaama uu takhasuskaygu yahay ilkaha, waxaan jeclaystay maanta inaan kula wadaago ahamiyadda ama faa'iidada ay leedahay inaad quruxsatid ilkahaaga iyo sidoo kaleeto qaababka kala duwan ee aad ilkahaaga u quruxsan kartid. bal sawiro tusaale ahaan adigoo ah ilka la'aan sidee oo ka lahayd waa foolxumo soo maahan. haddaba qaababka kala duwan ee aad ilkahaaga u quruxsan kartid waxaa ka mid ah number 2 inaad samaysatid wax loo yaqaan dental implant oo ah inaad ilig abuuratid. tusaale ahaan haddii ilkahaaga ilig ama 2 ilig ama 3 ilig ay ka maqan yihiin, waxaa samaysan kartaa ama abuuran kartaa ilig oo waxaa loo yaqaan dental implant. sidoo kaleeto haddii ilkahaaga ay wax ka qaldan yihiin, waxaa samayn kartaa number 2 wax loo yaqaan orthodontic braces oo ah biraha lagu xirto ilkaha. biraha ilkaha lagu xirto laba nooc ay u qaybsamaan inta badan, kuwa laga xirto qaybta sare ee ilkaha oo loo yaqaan visible braces iyo sidoo kaleeto kuwa laga xirto qaybta gudaha ee loo yaqaan lingual braces. biraha ilkaha waxaad xiran kartaa haddii ilkahaaga ay leeyihiin fantax, ama sidoo kaleeto haddii ilkahaaga ay leeyihiin malocclusion oo ilkahaaga ay raaran yihiin. sidoo kaleeto biraha ilkaha waxaa xiran kartaa haddii ilkahaaga spaces ama firaaqo ay leeyihiin. marka noocyadaas kala duwan haddii cabashooyin noocaas oo kale aad qabatid, waxaa samaysan kartaa orthodontic braces waxyaabaha loo yaqaano. sidoo kale qaababka kala duwan ee ilkahaaga ku quruxsan kartid waxaa ka mid ah number 3 wax loo yaqaano veneers. veneers run ahaantii waa ilka diyaarsan oo loogu talagalay in iligaaga lagu duljiyo. oo tusaale ahaan iligaaga waa la diyaari doonaa, kadibna lakab iligaaga u eg ayaa la dul saari doonaa. sidaa shaashada ugu jeedidbo qaabkan ayaa loo sameyn doonaa wax loo yaqaano veneerska. run ahaantii ilkaha loo yaqaano veneerska waa ilka aad u qurux badan oo waxaa loogu talagalay in iligaaga lagu duljiyo. waxaan inta badan samaysto dadka fanaaniinta ah, dadka caanka ah, dadka majaajilista ah iyo wixii la mid ah. sidoo kale qaababka kala duwan ee ilkahaaga ku quruxsan kartid waxaa ka mid ah number 4 wax loo yaqaano whitening oo ah inay ilkahaaga cadeysid. qaababka ilkahaaga u cadeey kartid way kala duwan yihiin. muuqaalada soo socda ayaan ku sharxi doonaa. ilkahaaga qaabab kala duwan aad ku cadeey kartaa adigoo gurigaaga joogo iyo adigoo booqdaba dhakhtar ilkood. muuqaalada soo socda ayaan kugu sharxi doonaa qaababka kala duwan ee ilkahaaga ku cadeey kartid. waa rajaynaya inaad muuqaalkan ka faa'iideysatay oo hadda fahamsan tahay qaababka kala duwan ee ilkahaaga u quruxsan kartid. fadlan waxaan ka codsan doonaa inaad muuqaalka like saarto, sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagana ugu faa'iideystaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.